hotel oo shirkadii dadweynaha oo marka horeba halka aynu joogno in marka caalamka ama Afrika wala eego qiimihii ugu jabnaa markuu qofku hal meel dirsanayo ilaa dira dhaba u tago waxayna soo martay iyadoo $12 halka minute lagu isticmaalo imika alxamdulillah shirkadda Samtel $3 baa bisha oo dhan lagu hadlayaa waxaana laga yaabaa haddii dhalinyarada $5 ay ku shubtaan bisha oo dhan inuu internet ku leeyahay markaas Samtel maanta carwada waxaan kaga qayb qaadanay internetkii inta marka ka tago waxa kaloo ka qayb galay oo Dahabshiil Group ka tirsan shirkadda Samsung oo aan wakaalad ahaan anagu u joogno 6 nooc oo kala duwan oo telefoonada ayaa carwada siintii socotay ka socday telefoonada Samsung bay ahaayeen oo aan siinay discount fiican warranty hal sano iyo $20 oo ugu jira qofka oo ku hadal iyo internet national intii carwadii socotay maalgelinta waa joojinay markii ay suurtagal weyday yani dadku sida ay u furanayaan akoonada waxay noqotay inaan iyaga dib u hakino oo nidhaahno dadku horta ha furtaan akoonada shirkadda Hyundai iyada halka baan gawaadhidii keenay ka soo laga iibsanin sanadkii 2020 ilaa imika waxaan filayaa gawaadhidii ugu badnaa dad badan oo yani u baahnaa oo aan gaariga u baahneen laakiin Facebook u baahnaa oo macallimiin ay mid yihiin in ay inta gaarigaas 15,000 ama $20,000 gaaraya iibiyaan ay laga yaabo inay ku kafaalo qaataan reerkoodii ama ay guriga ugu dhisaanba caawana insha Allah ya rugta ganacsiga guud ahaan gaar ahaan gobolka Togdheer gudoomiyaha iyo tiibkii gobolka xafladda waxa kale oo mahadnaqaya hotelka mulkiilaha iyo maamulkaba oo iyaguna si fiican arinta xafladda haddana aanay wax iska bedeli jirin ama haday cunto noqoto nadaafad haday noqoto dhinac walba iyagana aad baan ugu mahad celinayaa waxaan kaloo aad ugu mahad celinayaa dhammaantood waan u mahad celinayaa runtii mulkiilaha hotelkani wax weyn buu inoo sameeyey oo runtii aynu ka faa'iidaysano carwadan inoogu suura gashay hanti badan buu geliyay halkan mahadsan yahay maareeye Khadar Jibriil Aadan maareeyaha guud ee shirkadda leydhka Heeko oo iftiinka halkan aynu ku fadhino qaybka waxaan ku soo dhaweynayaa markan Maxamuud Umar Ciise oo ah gudoomiye ku-xigeenka guud ee shirkadda Ilays Enterprises soo dhawaada waxaan filayaa dadka meesha ku soo dhaarmaantood